kaartaha saddex macsanay haye hol fada waraysiga halka nago ilan maskaxdiis dig intaaba me laanda dhamow saddex bambe ee fanno uu tuuray miinada uu ku dhajiyay guri islaameed todobadan eedeysana ayaa ka kala howlgeli jiray qeybaha jabhadda khawaarijta oo ay ka wada tirsan yihiin iyagoo ka soo wada qayb qaatay weerar lagu dhibaateeyay shacabka oo shabeellooyinka badankood ka dhacay kuwa ayaa ka meeranayay silaaca ay kula soo noolaayeen duurka iyo nolosha jabhadka oo Baydhabo ka soo dhigtay gabaad halka qaarna isla xaafadaha magaalada Baydhabo bamba tuuris iyo miina dhigis ka fulin jireen xogo sirdoon iyo howlgallo isdaba joog ah oo ay niisa sameysay ayaa keenay in la soo helo xubnaha nasiinada u soo doontay Baydhabo iyo kuwa kale ee dhagarta ka shaqeynayay eedeysanaha koowaad Ibraahim Ugaas Eedanow Eedan ibnu Mucaad afgarashadiisu ay tahay eedeysanaha labaad Suubo Macalin Maxamed oo isna afgarasho u ah Shaani eedeysanaha saddexaad Soomow Axmed Quray duuqowna loo garan og yahay ayaa si gaar ah loogu heystaa inay ka wada tirsan yihiin kooxda argagixisada ah iyagoona si gaar ah u qaabilsanaa qaybta jabhadaha oo ah maleeshiyada kooxda u dagaalanto saddexdan ayaana horay isu soo dhiibay laamaha amniga dibse ayay ugu noqdeen safka khawaarijta may ballan haysida eed ah oo ha ka eedaynay inay kumadeen argagixisada al-shabaab iyo oo shaqooyin shalduun حقوقي oo dhibaatay ummadda iyo shacabka Soomaaliyeed shaqooyinkaas shalduun ya may fadaan mid sharxan insha Allah sanaha koowaad sanaha labaad iyo sanaha saddexaad waa niman jabhad ah dabkii on jeesan way kumadaha sanaha koowaad may ku qayb galay dhowr dagaal ah dagaalada inka dambeeyay ka dhiyay aw dhigle iyo sabiib iyo caanole ka dhiyay ya ku qayb galay soo afjeek sheegaday ama qiraal shay ka cadi may kala lankan sanaha koowaad way qaaday ini macnaha markii isu jabhada firfircoonadiisa iyo shaqadiisa iyo macnaha qaabshay la aragay kadib may lahan diray ini magaaladan dhibaatay oo hasahmi hashal barada kadibna macnaha soo magaaladan weeraran macnaha waa Ibraahim Ugaas eedeysana labaad saasoo kale isuuna dagaalo oo jabhad ah yaa qayb qaaday lahan tawbari waa niman ka safaysan macnaha dhibaateynta dadka shacabka eedeysana saddex saasoo kale waa niman tawbarka suba dhowr nooc ah tusaalaan dadkan hadda may ka dhaladeen intii badan bakool ka dhaladeen bakool tijeeglow ilaa may ka dhaladeen Moorgaabay meelanka dambeeyay bakool waay meelanka dambeeyay oo koonfurta Soomaaliya lajii wayna meelan linjay in tawbar oo la siiyo umuto dhibaateeyaan umutiyo la ku dhabi oo dad soo hayd deegaanka soo dhibaateeyaan yamaana asaaslan weele faafaayb mantaan ka tirsanaa al-shabaab ama ka beertay لا تسديد أخبرتي أنت أخبرتي دقمة تيجلو توفر الإنجليز كوباني ما تجرتن سيد بلاد كوباني هو كوباني ميلان أنا ودي مش مدينة نشان ميلهم ننسي ميلان نوقاد مدل أمبلود ميل روبي ميلهم نوقاد دن ميل بري روسيان الجاي بري دجال في دجال وني بري ركوت يا كوغالي قال لما ضو أنا قالي أو ديجل يو البرف يلو لقاب فرتم دقة على قاري كدبنا واي فصاحي مدير الأمبلود فصاح قوي أنا قد ميلي جفاده قوي أسكسواي مش مدينة قوي مش مدينة سيان وطبي هذا بايرو لك هو بايرو مدة شامبلو ثورة مركي كويس برا لا قوة ده ده شاب أتى لكن هاي شاب أتى مسميه دي مسدارك قابته شاب هاي شاب أنت كبرت أمانة كبرتي شاب ما هو بيري بالك هو بيري مدرس كده وين قاعد أم هاي توان هلا كنا لما تو كلا وتفر وين قاعد بولو فلاي يعني نيجي ميلا تاور قالنا أما كجرت تابارك شامبلو ده كجري ما يلك باره ميلا بره خوبا مده خوبال كبار مسكتة على كباره خوبلا بره دجالك كيف قاعد أنت ساعات دلك جاي دجال على بيجال على دجال قال ده قال سويت أيه كذبنا كذب أقطعنا
دجال كان لو أتفر برلي ميلروني أباني أنت كويته ده ما يكون موارك تجمد موارك بلا كوي نبيلا دنا دوري قالنا شاب غير لو كتا من دوش شامبلو أنترو شامبلو ده فايدة كويته ها كو قاعد مكان نسا قوته والله كان هاي أنت شباب كترسن أنت أم بدأ قبض أما كترسن ليه كترسنا كترسن هاي فميلاك كبرتي ولا قوت ميلان كبيري دغمدا ويجد تان هوسيرس ما له ماشى ما دايتو ما دايتك كبرتي جيلبا نسا جيلبا ينيجي جيل مدساني أبار جيل بروني وين قاوي جيبين كان نيجي جيبين كا موسر كقال على بلولا كجري تنا هو وريني نديبه وين ديش أبارن دجال مرقله ما دجال مقام هل سنة اللي جري كدي فصل عيسي قال بربرة يا كدي بربرة ساتة نيلا بارو أكسي تابي بايدو يا قالي ما قاله بايدو مدة غوغوز قالوا كوبادة أما لا قاعد مركون ما لا قاعد أبار سنة أو سيس أو كذا كشيء بايدو ما سنة ما رود أنت قاله سيس نوكا سياسة المركز بعد لا قاعد eedeysanaha afraad maxamed aadan cusmaan oo isna afgarasho u ah usaame eedeysanaha shanaad xasan macalin aadan eedeysanaha lixaad maslax xasan madayib eedeysanaha toddobaad xasan maxamed guudow qawaariijta qaybta ay ugu yeeraan amniyaadka ayay hadda uga howlgelayeen baydhabo si loo fuliyo falalka amni darada ah ee lagu waxyeeleynayo nabadgelyada caasimadda hadda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya eedeysanaha afraad maxamed aadan waa ninka magaaladan qaraxyada iyo miinooyinka iyo dhajiiska iyo bilaayada ku afufay waa ninkan waa nin halis ku ah dadka iyo deegaankaba ninkan may bamka tuuray bangiga laanta bangiga Soomaaliya ee Baydhabo ku taalo oo ah meeli hantada qaranka ama hantada ummadda ama canshuurta ummadda Soomaaliyeed intii lagu qaado la ilaaliyay la xafiday kadibna wallan ka waday meel sabam ka tuuray may kala bam ka tuuray law meel oo rug booliis ah oo checkpoint ah booliiska maxrabadi iyo ku jaagarayaan amniga magaalada oo ku taalo magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafadda Cadaada silag Amerikaanka loo yaqaan bambooyin laba jeer ay ku tuuray waxa miino oo bahash oo dhajiska lankasaw ka dhajiyay guri usulay lan ganacsato Soomaaliyeed ah oo walban galabsan oo hataa dawladda ka jaran lan lahayn horumarka ummadda intii ku horjeedan nimankan iyo aragtada iyo macnaha tadawurka ummadda Soomaaliyeed horumaraas intii ku horjeedan macnaha gurigaas lankaas shacabka leey yamiina ka dhaji marka lankaas waa lan halas ah oo may la raayso in ummadda la ku qabada ilaahay heeda amniga galantay hagili khiyaanadii iyo makrigi oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadtum usukahay ilaahay ku qabaday waay marka usama waa saas ولكن هاي سنتا شعب طبعا كترسنا مقالة بوالا كبيري هذا هل سنة الكروغات توبر قاله توبرها ما مالك باري مالي باري بام لي باري بام تورا إمي نقامات مينا أو قري رجيس تكهول قلاس مالكم بدولة كهول قلي معين ويركلم كهول قل بدول دقنا هذا ما رويات وجل رويات ما بام عمل تورته سد ما توري سد بام عمل تورته أنت تورته بكتوري هلا بنجي كتوري لما بقى ويكتوري سيلك بس دجيس كنا حافظوا إيديان لما بإيدي لي ما توكر تمام ما توكر تانا ويل لي أنا لما بقول أمر ليس كده ما كلا شغال قوته وكان من قونا ده مشارع ما قاعد مشارع هذا ما لي أنا أفرطن تورر سنة شنات ما يكون مذ هذا جري إذن كدراويش تكوفر قلبات يكون مذ هذا جري ولان قرش لقلي توبر لسي وقت لقلي حنت الدولدين لقلي توطل لسي قرول لسي توبر عسكري دولدين هاي كبعد عسكري
dowladnimada soo shaqeeyay fikirkii argagixisada intii soo qaaday gorishay qaaday tuutay qaaday ma injay al-shabaab ay qorigin hooda tuutaana qaada dowladda ku sheeni anina siin la shaqeeyo hataa dadka qaar inta badan markii oo isdiiwan goriga lagu qaado jaray baal arjar laakiin waa la shaqeyn ba macna lan ka weeriba sidiisba tawbar kale oo dheeriya intii la sii ya macna shaqeey dhowr sano la shaqeey laakiin shaqooyinku soo qabaday oo afjeeki shaqeey way ku madaha saxminta wadooyinka oo gobolada la isku gooyo laakiin mootolo way mootada waxa mootolo may safaylan ka say mootada la raaw fekon ya safaylan ka say mootaas ka shaqeey mootaas la dhibi askarti la tawbari iyo muasarki isku tawbarka la qaaday dhamaan way ku reebay sababtoo lan ku reebay way la siiyay tawbar gaar ah oo ah xuduudaha gobolada la isku gooyo askarta maana ka gobol duulas ama weerarada dawladda xarumaha dawladda weerarada jidkaas la ka saamay jaray lankan jidkaas ka saamay jaray way la kuma lahayd baydhabo ha galaanshay maana ha galowshay saameynta la kuma lahayd ma has dhiibo iyo baydhabo meel isku taway askarta ka saay dadkii deegaanka ka saay meel isku dhaladiyo meel isku tawbarday meel isku mayl raayso askarnimada iyo tawbarka iyo horumarka la ka bilaaway dawladda ka bilaawtay dad ma ku kaswayn sababtu sangalay way tahay saameyntaas lahayd maana soo gabaad ka dhigada maanaha mootadaas fekonta marka qoriga dawladina ku maqan yahay dhibaatada oo geysay dawladda iyo deegaanka geesigan isku baafjeeki sheegay waa hadda turjumaan ma ah warka al-shabaab ka tarsanta أنا والله ما قاعد بوش مدينة اللي مركز كبيري. أنت كتبت كوتي؟ ضاضوا لي كتابي بوش مدينة سادي. لما يكون لاتي كوتي. ما الروق دي؟ أفربلوت. أفربلوت. مركز هاك جرني. والبرشة دي وقت ما توبرا لانقاذ اللي ريان ولي هذي. إذا من الدولة ده هي منام فاسول اللي هرتان قال اللي. من الدولة تسمع هرتان قال كذا. هرتان ميلان نسوق قال. فيرود درا عليه كوي. أمين كوبس بري. هرتان لا خواه ده. ما هي ده؟ كنتين لامبر. دولة أنت انكجرت من الكوات. دراويش ميلان كسناي. أما بات مرخوم. واجد دور شدي لفت قرن. أي سنها لهاد ويها قاضي توبر سؤال الشاقي أو نيشاقي وحياله أو سجبات كذا هسدي وفلاي هسدي بي ولا معناها ولا مرمرسيه أو أي سنها ما مجالا مركي حق على يوربين اسمه لها قبضة إني سو عسكري دولة عسكرت الدولة دراويش تكوفر قبل القراها إني سو قرضة أو كبير أو جبات كده أو نانك شقي نمنك أو دقر قبيالك أو أرجع حسده معناها عسكرت استيه هول قال إيو معناها وربعين كسي ساسا معناها وربعين تيس وسو كسود تاسايد والله كان هاي سنة على شباب كتير سنة لما نكون لا تفرت كبير أنت كبير سيديان كانت هاي ميران كبيري سيدنا كبيري توبر قال توبر مالها ور برسنا ماري توبر ماري إيه أنا قتاي أسكرنا قتاي أسكرنا لا وري لك ساي كودم ميسين وري دجال قال دجال هربم كان أم أسكر دجال باي بكور الليجين بكورة كشجاعي تولد لما تو وير هني وير كات أما كويس بايلو سمي جيرا كوي سونغ بلديم يا كوي هذا رأي كويس سونغ كان قلت توبر كنت انقبض توبر ميربوش مرين هوسه ما بلوت كجرته سيد بلوت إبر كاردا ستة معسنا أيه بايدو ما دون قرر لايف أساي هوب لايف أساي سيدنا كوي بقول همري بيجيلو يو إنجزا همري بايا كوي ما دون سيدنا كوي سيدنا يا تور كي هباي هاللواي سان هاللواي أو تيسان هاللواي بايدو ما كوي مغرب متويت لما كوي أنا بايدو هكذا ما فرق أنا أنتي هرن أنتي سيرو فرق وان بايدو جيسا كمري جيس أنكو كوي أسكرتولين ساري نو ميري نو أسكرتان ساري ميري نو أن أسكر ما فرق هيا يونو ما تكورد ما تنس كورد أنا لامي مروا هم يا هم ويردي نو أنا لامي مروا هم ويردي متعاطى ما يليري كوي ليري أنا ساري متون ما يليري أو شو نيو أسكر ما فرق ما يليري إسبار ليري إسبار ليري شارك فرا ليري ما يوسف فرا ليري على تلا ما فري نو ميري نو أسكر ما فرق يوم زاد والله فر ليرن والله فر هاني فر
إن أولى أماونت ويلي إن كيري أي ويلي لان eedaysanaha toddobaad saasoo kale tababarkii haqaadi tababarka markii haqaadada qofka wayl say fasax yaro birif oo la raw macnaha tasti qofka intiisu daacadan hayn hataa la tijaabiyo oo lamada bari sideedo bari adanteen baasay la reeb qof kasta wal qore qof kasta marka meeliisu ka fayliya ama laakiin argaan liya ka dhuumada kortiliya walnaha ku hin in kayda kortiliya oo warbixin ku sheena kortiliya lan fasaxay ana bay dhaw fasaxa ka gali maayna dad ma kasaan meel dadan kasaan aday sidaad man baas taas walo marxaba ma la reeb qaana isku marxaba macnaha inni isu meelin lahaan diray fasaxayna inni ha qaado warbixin ku sheena hodhowna shaqo lahaan ka diray macnaha saasa macnaha ujeedii saasay لكن هاي سنتها شباب حتى مسؤولية دي مثل دولة قبط صارن درا شعبها دون دافو ميلار عنك بيري هي انت سات انت كجين أرو جيم أرو قاعدين ويجين بواري جيم بلاي أنت يتم بريتو مش بريجاري انت كجرت أرو أدوبه قالنا بوال ما بلغت كجرت بريتو مش بريجاري كجريان أنا ولا ما يبرر أنت ما يصير قادر ولا يبري مركز أنت بركتو ولا وقت تبيان مركز بركة مدام أنا كتاخدوه مديان لا شعبانكي أما بعدها ما كويته بدو بلاد ما لا تيجي كوي قاضي مكان درويش قوتي baara ka tirsan nabasugidda iyo sirdoonka qaranka niza ayaa maxkamadda ku biiriyey natiijada baarista oo fadhigan looga dhageystay ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle dhexe axmed cabdalla ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad afaraad iyo shanaad inay ku xukunto dil toogasho ah halka eedeysanaha lixaad iyo eedeysanaha toddobaadna lagu xukumo ciqaabaha ugu adag ee ku xusan qodobada eedda si waafaqsan marka qodobada 114 iyo 163 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eedeysanayaashani waxaa lagu cadeeyay in dambiga aan ku soo eedeynay oo ah ka tirsanaanshaha ururka argagixisada ee al-shabaab iyo ka qayb qaadashada falal lid ku ah amniga inay galeen faldambiyadaas waxaana loo cadeeyay si clear ah ayaa loogu cadeeyay mid walba doorka dambiga uu galay doonay gudoomiye anigoo ku dheeraanin bacdama faahfaahintii kiiska ay bixiyeen saraakiishii iga horeysay waxaan rabaa haddana inaan mid u sheego nin walba oo kooxdan ka tirsan faldambiyad ayuu ka galay dalkan iyo dadkanba gudoomiye Ibrahim oo ugu soo horeeyay hadda ka bilowno waa nin dhalinyaro ah muuqaalkiisa markaa fiirisid waa nin aad u yar haddana sidaas ay tahay argagixisada ayuu ka tirsan yahay wuxuuna ka qayb qaatay 4 dagaal 4 kaas dagaal ee eedeysanaha uu ka qayb qaatay wuxuu ku laayay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dalkan iyo dadka maafici lahaa wuxuu ka qayb galay dagaal ka dhacay Bariire dagaal ka dhacay Hilowlgaab dagaal ka dhacay Ceel Baraf iyo Owdigle intaasba wuxuu sheegay in asagana uu dad ku laayay asagana dadka la socdayna qaar laga laayay 50 qof mar laga laayay mar 40 qof mar dhowr laga raanay meeshaasi waxa ka cad in uu u bareeray in uu daadiyo dhig bacad tacab shida markii 4taas dagaal oo waliba dagaalo culus ah qaarkood habeen dhan uu socdo qaarkood maalin dhan ay socotay oo ka soo qayb galay ayaa fasax la soo siiyay laamaha amniga ayaa qabtay mar alla markuu magaalada soo galay waxa ka cad in dambi culus uu galay dhigna uu daadiyay sidoo kale eedeysana Suubow isagana wuxuu ka qayb galay dagaal ka dhacay Sirib halkaasi wuxuu ka geystay dhimashooyin iyo dhaawacyo ka geystasna sidoo kale eedeysanaha saddexaad oo ah Somow daahan ragga meesha fadhiyo ragga ugu waaweyn oo ku jira laakiin 2014 ayuu argagixisada ku biiray ma dhowba dhowr iyo 10 sano u shaqeynaya shaab intaasba kamuusa waan toobin ilaa heer magaalada Baydhabo inuu ka dhax shaqeeyo uu bilaabay sidaasna lagu qabtay eedeysane Usama asna dambiyada uu geystay ee maxkamadda hadda lagu hor cadeeyay asagana uu qiraal ka ahaa maxaa kamid ah inuu shabaab ka tirsan yahay kaliya ma ahan waliba inuu magaalada Baydhabo ka geystay qaraxyo 3 bambe ee fanno uu tuuray miinana uu ku dhajiyay guri islaameed
weliba ninka miinada guriga ugu dhajiyey waa nin ganacsada ah oo dalkan iyo dadkan inuu u shaqeeyo u soo baxay dawlad aan ka tirsaneen urur aan ka tirsaneen iska ganacsanayo ayuu gurigiisa miino ugu dhajiyey marka maxaa meeshaasi ka cad in dhiigdaadin uu magaaladan ka sameynayay sidoo kale mudan gudoomiye eedeysana xasan guudow oo ahaa ex dable macnaha askari hore u ahaan jiray isagoo askari ah dawladda ay tababar siisay qarash gelisay qori la siiyey u shaqeey dalkaaga iyo dadkaaga la yiri ayuu wuxuu door biday inuu argixisada la shaqeeyo kaliya marka uu goosanayo lama fiirinayo mudan gudoomiye asagoo ka tirsan oo dawladda ka tirsan oo daraawiishti ah oo ninka qoriga loo dhiibay ayuu wuxuu bilaabay horta number 1 inuu taliyo urur dilo inuu qori la soo goosto inuu markale haddana askari kale saaxiibkiis qori kala goosto laba jeer oo xabsi gala buuraha kabana xabsi waa lagu xiray hal sano ku xirna baydhabana waa lagu xiray kuma waan toobiga waxaas oo dhan al-shabaabnimada u cadeed eedeysanaha ilaa markii dambe qori uu la goostay shabaabka toos oo ugu biiray dambi badan oo halkaas ka soo geystay marka eedeysanahaasina faldambiyadaas ayaa ku cad qiraal ayuuna ka yahay sidoo kale maslax iyo xasan waa laba eedeysane oo ka tirsan al-shabaab tababar soo qaatay tababar jabhada soo qaatay marka ugu dambeysana waxaa loo soo diray magaalada Beedhabo inay ka shaqeeyaan falal lid ku ah amnigana ay ka fuliyaan qiraal ka yihiin intaas haddaba mudane gudoomiye baadama eedeysanayaashani dhammaantood ay ka wada tirsan yihiin ururka argagixisada ee al-shabaab nin walbana faldambiyadii uu geystay maxkamadda lagu horaadeeyay waxa maxkamadda sharafta la ka codsanayaa siday u kala culus yihiin faldambiyadooda xukunadooda inuu u kala cuslaada ayaan rabaa eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad afraad iyo shanaad maxkamadda waxa ka codsanaa baadama dhiig ay daadiyeen inay maxkamadda ku xukunto dil toogasho eedeysanayaasha lixaad iyo toddobaad maslax iyo xasan inay maxkamadda ku xukunto ciqaabaha ugu adag ee qodobada aan ku soo eedeynay maxkamadda sharafta la maasanta qareenka ayaa isna dhankiisa codsaday in muwakilintiisa loo fiiriyo si fifaalaha dembiga fududeeya garaangna aan eedeysanayaal anta fadhi sidoo qaba qodobka 16 heerka habka ciqaabta Soomaaliyeed muwakilinta jawaabta biyan qodobka 104 heerka habka ciqaabta Soomaali yaa ka idii tan kale dadka la hawada eeday inta ka eedaysan qaar damban gobadaana ka jar markii lagu bilaabo number 2 Ibrahim Ugaas Aadan waa is-otum ishan sano jar an gaangaaran unog maskaxdiis la haday ya shabaab kabiiri haddana sida heer ilaalinta sheegti baaraha sheegi yoo dhan adeen dhul shabaab lay roog dad kale roogna ya miskintiis la ka haday markii lanka dhul dawladeed ku tabaya la eeday karo markii is dhaladay dhugunsada shabaab la roog markii intan dagaal ee galay is oo gaangaarnahay lan gaangaarin xukuumo gobadaw sidwal haad lanka sugu mayleeray tootio ka sugu xukuumo gobadaw may kumade lanka ilaa ku gaangaar mahayn tumishan sin tabar galkana qawaaninta ama sharaa islaamiga kutubada qaar sidii qoraan tumu istiyeedsano marka masaakintan inay dhagan miskiinkan inay dhagan ilin liin weydi ladii waalidiintiis liinka weere galanta la ka gobada la xanaanayo la ka wareeji la barbaaray sida baaraha ma heer ilaalinta sheegay ilaa afar dagaal galay lanka hadii maskaxdiis taam ee afar dagaal ma galaw onogu taasu ama suubow usuusaasoo ka 20 jarahay markiisu walaalka beeray tumo 7 email oo jari sidoo sheegay naftarjay ma gaangaar dadka xukunka gobadaw me dad dhagan ilaa baaha meel gaar ee lijay xanaana gaar ee liin suubi waalidiintii la tusi maskaxdii la dijiyay baahan dawladna hariisaas ma wal macadabaas sidii horey baan ogayn hadan aan weela jartay in liin weela lanka la raaw soomo markiisu ka beeray tumo ilisani jar waa dhulku isu roogib shabaab lay roogi adduunku walaaka noolba shabaab lay u aslahay ma ilaahay 240 ka beeri hadan 20 isiyada jara markii aad ku goyta ma haahire tumo ilisani
iyaalkan banooniyaalka derbiyaalka ka haraantiya lama tahay marka maadaama unagaas aan gaaran hayn isoo aan gaaran hayn la dagay la dhumi saas oo kale bari umada anfaa anil maskaxdiis lagu dhige wali yaraanama ka gali hadba dhalinyaro ay anil saas oo kale dhamaan ka kasta oo meelan rooga oo aragda arintaas iyaalnama ka gaadi maxkamadda inay fududaayte mid kale lanka maslaxa la raw hol fada wareysiga halka nago ilang maskaxdiis dig inta ba mep landa dhamow lang oo la ka xisaabtamo koro sida aril arkoro ma anta kale goro gadati maadaama gorun luku gudi kan kalena luku gudu liin fududaay wal alla wali usijaysid in liin fududaay iyo la fiiriyo qeyrka qodobka afartanaad heerka ciqaabta Soomaaliya iyo liin fududaay markaas daraadii ha gabagabaysadee in maxkamadda ciidamada qalabka sida ka hadla qodobka dambe ku waayid 121 heerka habka ciqaabta Soomaaliyeed intii wala ka cadaadan dambe fudud la xukumo maadaama dadka fududeen saraakiish fududeen wal alla wali jar fududeen liin fududaay dadka dhan elinta baahno iyaalka dugsiilayta yoon meel dhagan elin harun alijay wala bar waalidiintii la kuwareeji wabillahi tawfiq daawada inta gabagabaysi difaaci garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray Cabdi Fataax Akhyaar warbaahinta qaranka Baydhabo Janay